أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دواذا جوغلا ميديا على جوغلا ميديا waxaa kala socotaan barnaamijyadii ugu dambeeyay sportska kulamadii ugu dambeeyay dhaca wararka suuqa xanta kala iibsiga maxaa laga yiri Champions League horyaalada kusoo dhawaada markale jooqla media hadii aad ku cusub tahay jooqla media waxaan iga codsanayaa inaad subscribe saartaan hadii aad hore u joogtayna fadlan like saar si uu gaar asxaab badan waxaa ku falanqeyn doonaa kulamadii laga dheelay Champions League xalay ilaa habeen hore talaadii arbaco waxaa ku hormareynaa habeenkii talaadada ahaa waxaa la dheelay kulan aad iyo aad u xiiso badnaa oo aan laga sheekay karin kulan xamaasadiisa watay kulan ay dhimatay Real balse laga fishtay wax kale Real Madrid ayaa soo dhaweysay dhigeeda Chelsea garoonka Santiago Bernabeu kulan kusoo dhamaaday 3 gool iyo 2 gool ee Chelsea ku adkaatay walow la dhahay Real way soo baxday haddana Chelsea way dhimatay laakiin ma dhicin midaas Chelsea ayaa kulankaas aad iyo aad xamaasad ku soo gashay iyo dardar aan laga filaynin kadib markii shabaqa uu gaaray xidiga reer England Mason Mount oo shabaqa gaaray kadibna waxaa uu labeeyay Antonio Rudiger xidiga daafaca haddana baxsad ka ah garoonka Stamford Bridge ayaa uu labeeyay sidoo kale waxaa sadeeyay xidiga daalan la dhaacayo xidiga reer Germany Timo Werner ayaa gool saddexaad dhaliyay kadibna waxaa afareeyay Alonso laakiin waa laga diiday gooshaas kadib waxaa bilowday cararkii Real Madrid kadib markii gool ay soo celiyeen xidig bedel ku soo galay Ancelotti ayaa qamaartamay oo bedel ku soo galay kadib markii uu bedel lagu soo galiyay xidiga Mariano oo reer Brazil ah ayaa shabaqa gaaray wuxuuna ka dhigay ciyaarta 3 gool iyo gool sidaas ma aysan ku sii ekaanin 3 gool iyo gool hadii Chelsea ciyaartaas ay ku dhamaatay waa isla natiijadii hore ee ka soo dhacday Stamford Bridge kadib waxaa loo baahday extra time si loo kala baxo ciyaarta extra time ayaa la aaday extra time hadii la dhaana Real Madrid waa naadi quwad leh Chelsea way ka yareysataa kama wada laakiin waa Real waa boqorada Champions League sida la dhahayo oo maadaama 13 jeer ay qaaday UEFA Champions League sidaas awgeed extra time markii la aaday macallin Ancelotti ayaa bedel sameeyay oo ciyaarta isku shaandheeyay walow Thomas Tuchel asina bedel oo sameeyay laakiin bedeladii lagu faa'iiday waxaa sameeyay Ancelotti kubad ka imaatay dhinaca Francis Junior ayaa kubad uu soo qaaday waxaa madax la helay xidiga weerarka ugu ciyaaro xulka qaranka Faransiiska ee Real Madrid Karim Benzema kubadaas oo madax oo la haleelay kadibna shabaqa gaartay ciyaarta ayaan isku bedeshay dhinaca kale kadib markii Chelsea ay 3 gool ku hogaaminaysay ciyaarta markay marisay 5 daqiiqo walow ciyaarta markay dhamaatayna 3-2 ee Chelsea ku adkaatay laakiin ay ku hartay heerka quarter finalka waxaana sidaas semifinal ugu gudbay naadiga Real Madrid oo ku soo baxday celcelis 5-4 kulankaas ayaana kulan waali ahaa kadib markii Chelsea carcar ay ku bilaabatay walow gadaal dambe 5 daqiiqo markay mareysay agaaraas gool laga dhaliyay ay saaciday Real Madrid in extra time la aado kadibna ay gool kale ay hesho xidig Karim Benzema xidiga aan la taaban karin xidiga aan la heli karin xidiga muslimka ah ee caawinayo Ramadaanka maadaama uu dhahay wax walba waxa ka muhiimsan diinta Islaamka mana u furi doono Chelsea wax la mid ah Ramadaanka sidaasna uu ku dheelay wuxuuna gaaray shabaqa mar kale walow kulankii horena oo 3 ugu soo dhaliyay Stamford Bridge sidaasna Chelsea ayaa loo ciribtiray UEFA Champions League iyadoo ahayd daafacayaasha UEFA Champions League kadib markii sanadkii hore ay qaaday sidoo kale waxaa la dheelay kulan asina waanan ka laba dhicin oo awoodiisa watay walow saadaalinta mar walba ay hal naadi ay jirto laakiin wixii dhici doona ay qoran yihiin
waxaa bilowday kulan lagu dheelayay galcadda Bayern ee ku dheesho ee Allianz Arena markii kadib ay kusoo dhaweysay naadiga ka dhisan cariga Spain Villarreal ayaa goolka hogaaminaysa ciyaarta intaysan bilaaban ka hor walow ciyaarta ay markay bilaabatay la isku adkeeyay la socday ciyaar dhaafta ayay ahayd walow inta badan ay daawanayeen ciyaartii ka dhaceysay Santiago Bernabeu Chelsea iyo Real Madrid laakiin ciyaar kale ayay ka dhacday dhinacaan iyo Munich garoonka Bayern Munich Allianz Arena Bayern Munich ayaana bilowday gool uu dhaliyay xidiga gool magafaha xidiga reer Poland Robert Lewandowski ee haddana baxsad ka ah naadiga Bayern ayaa bilaabay inuu shabaqa gaaro ku adkeyn kadib sidaas ay hoggaanku u qabatay ciyaartan waxay noqotay gool kadib markii gool hore ee Villarreal lahaayeen sidoo kale ciyaarta waxay socotay daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta waxaa gool la imaatay naadiga Villarreal oo celebration iyo qaac iyo qeyl iskugu daray naadiga Bayern Munich kadib markii garoonka Allianz Arena natiijada ay iskugu bedeshay gool walow ciyaarta markaas ay aggregate ahaan ahayd 2 gool ee Villarreal ku hogaaminaysay sidaas awgeeda Bayern Munich ayaa dadaalo badan sameysay isbedel xoog badan waxyaabo badan waa isku dayday waa sameysay waa weerartantay laakiin Villarreal ayaa ku soo baxday in ay garoonkaas natiijo wax ku ool ah ay ka keensato kadib markii garoonkeeda ay ku soo badisay Villarreal bareejada xitaa waa muhiim ay taagneed sidaasna Villarreal ayaa iyo Bayern Munich ayaa ciyaartooda ku dhamaatay gool aggregate waxay ku dhamaatay 2 gool ee Villarreal ugu dabaaldegtay garoonka Allianz Arena si naadi Champions League qaaday oo kale waxaa sababay leeyahay naadiga Bayern Munich macalinkeeda Hans Nagelsmann ayaa yiri garoonka Villarreal markii lagu dheelayay ma ahayn in aan ciyaartan la dhaafno naadiga Villarreal laakiin waa inuu Bayern Munich iyo Allianz Arena waana la arkay tii ka raacday faankiisa iyo hadalkii ka hormaray wax ku dhacayna waxaa leeyahay waa wax uu asiga sababsaday Villarreal ayaa page-keeda ku soo daabacday welcome to Farmers League amalno Champions League meesha laga rabay Farmers League ee dhacdano Villarreal ayaana ku maadeysatay dhigeeda Bayern Munich Bayern ayaana laga ciribtiray UEFA Champions League iyadoo la dhigi jiray Hitler warkaas waa la soo gabagabeeyay nasiib baan Villarreal sidoo kale xal waxaa la dheelay kulamo ka tirsan horyaalka UEFA Champions League UEFA Champions League ayaa kulamo laga dheelay oo wareega quarter finalka ahaa waxaa garoonka ka dhacay garoonka Anfield Stadium ciyaar xiiso badan oo ay soo dhaweeyeen naadiga Liverpool naadiga Benfica naadiga Liverpool ayaa carcar ku bilaabatay walow ciyaarta mar walba ay dhinac walba isku bedelaysay natiijada Liverpool ayaa iyo Benfica ayaa 3 gool ku dhamaatay walow ciyaartii hore ay 3 gool naadiga Liverpool ay away ku soo badisay argeedna waxa ay ku soo baxday 6-4 ciyaar xamaasadeeda wadato walow Anfield 3-3 lagu galay naadiga Liverpool ayaa iyadana xamaasadeeda wadatay kadib markii Roberto Firmino iyo Konate ay shabaqa gaareen laakiin ma dhicin in hoggaanka sidaas ay ku sii hayaan waxaa goolalka daba keenay naadiga Benfica iyo ciyaartooydeeda oo dadaal badan sameeyeen iyo macalinkii juhud soo bixiyay Liverpool ayaana 3 gool bareejo ah ku dhamaatay kulankii ka dhacay Anfield Stadium aggregate waxay ku soo baxday 6 gool iyo 4 nasiib baan ayaa leeyahay Liverpool sidoo kale kulan waali ah ayaa ka dhacay Wanda Mauritania ay ku dheesho naadiga Atletico de Madrid oo soo dhaweysay naadiga Manchester City ayaana kulankii hore hali eber wadatay oo natiijo ah ciyaartii ayaa bilaabatay ciyaartaas wax ma aysan ka soo kordhin sidii ay ku bilaabatay ayayna ku dhamaatay oo ah nil oo eber ah
laakiin Atletico Madrid ayaa sameysay weeraro isdaba joog ah, dadaal dheeri ah, walow City iyadana daafaceeda ay adkaysatay weerar ay qaaday, laakiin Atletico Madrid ayaa u soo baxday inay daafacdanto, weerartanto oo natiijo wax ku ala meeshaas ka soo saarto. askartiisa ayaa dagaal iyo juhd isku daray in naadiga Manchester City iyo Pep Guardiola ay ka ciribtiraan UEFA Champions League, laakiin nasiib daro ma aysan dhicin. Kulanka ayaa ku dhamaaday eber ah, natiijo eber ah. Atletico Madrid ayaan laga soo calaameynayaa in ay sameysay waxyaalo oo aan sportska u fiicnayn iyo indhaha caalamka, laakiin natiijada eber ayay ku dhamaatay. Manchester City ayaana sidaas ugu soo gudubtay wareegga semifinalka ka dhici doono naadi ay ku aaday. Sidoo kale naadiga Atletico Madrid ayaa la sheegayaa in UEFA ay ganaax la beegsan doonto kadib markii dagaal iyo qababac iyo tuuri iyo handadaad ay iskugu dartay ciyaartooyda Manchester City sida Phil Foden, Raheem Sterling iyo Grealish. waa ciyaar fani ah wallahi markii oo la fiiriyo, kadib markii Phil Foden minus waxba lagu baxay, walow Grealish asina timaha laga jiiday, waa lagu dhedheelay. Atletico ayaana dagaal iyo qababac u soo baxday kulankaas. sidoo kale Atletico Madrid iyo macalinkooda ayaa juhdi dadaal ay ku bixiyeen si ay u soo bixi lahaayeen next match wareegga xiga semifinalka, laakiin Manchester City iyo Pep ayaa isgarab istaagay oo diiday arrinkaas. sidaasna waxaa ku soo dhamaaday quarter finalka UEFA Champions League, waxaana soo baxeen naadiyaasha kale ah Real Madrid oo ka soo baxday Chelsea, Bayern Munich oo hartay oo iyadana soo baxday Villarreal, sidoo kale Liverpool oo ka soo baxday Benfica, sidoo kale Manchester City oo ka soo baxday Atletico Madrid. waa Real Madrid, Villarreal, Liverpool iyo Manchester City. sidee la iskugu aaday? waxaa isku aaday Manchester City iyo Real Madrid, halka Liverpool ay ku aaday Villarreal. lugta hore wareegga semifinalka waxaa la dheeli doonaa 26 Abriil 2022, waxaana dheeli doono naadiga Manchester City iyo Real Madrid, waxaana lagu bilaabi doonaa Etihad Stadium. sidoo kale maalin ku xiga 27 bisha Abriil 2022 waxaa wada dheeli doono naadiga Liverpool iyo Villarreal oo mucjisadeeda wata sanadkan, lana filayo ilaa meel sare inay ka gaarto. waxaa lagu hormari doonaa garoonka Anfield Stadium ku ciyaarta naadiga Liverpool. wareegga markii kulamadaas la dheelana waxaa la dheeli doonaa lugta labaad 3 May, Liverpool iyo Benfica. sidoo kale 4 May waxaa wada dheeli doono Manchester City iyo Real Madrid, kadibna finalka ayaa la filayaa inuu dhici doono 28 May 2022. UEFA Champions League ayaa intaas ugu bixi doonaa. maxaa ka leedahay kulamadii dhacay, Chelsea dadaalkeeda, gooshii laga diiday, iyo soo bixistii Real oo ka dambeeyay Karim Benzema, iyo sidoo kale dhacdadii la yaabka lahayd ee ku dhacday Bayern Munich kadib markii Villarreal ay ka ciribtirtay UEFA Champions League. sidoo kale maxaa ka leedahay Liverpool iyo Benfica soo bixistii waa iska cadeed, laakiin haddana Anfield in 3-3 lagu galo wax waali ahayd. sidoo kale dagaalkii ka dhacay Wanda kuwada ciyaarayeen naadiyaasha Atletico Madrid iyo Manchester City, maxaa ka leedahay? fadlan commentiga la wadaag. sidoo kale ha ka iloobin subscribe inaad dhahdid, fadlan haddaa hore u joogto in like saar si oo gaar asxaab badan. aad u mahadsan tahay. sidoo kale maxaa ka leedahay in ay soo bixi doonaan ama isku arki doonaan finaalka Manchester City iyo Real Madrid oo wada dheeli doono iyo Liverpool iyo Villarreal. cadcaadaashaha waa gooni, kulanka Manchester City iyo Real Madrid ma la cadee karo, laakiin Liverpool iyo Villarreal ayaa leeyahay Liverpool soo bixi doonto.
walow Villarreal naadi mucjisada wadata ay tahay intii markii iska soo daba dartay Bayern Munich iyo Juventus iyo kulamo kale oo group waalin ay kasoo baxday adig maxay kula tahay sidoo kale waxaa soo gabagaboobay kulamadii laga sugayay horyaalada qaaradda Yurub khaasatan Europa League iyo Conference League naadiga Barcelona ayaa garoonkeeda ku qaabishay dhigeeda Frankfurt laakiin Frankfurt ayaa guul darweyn dhawarka u saaray naadiga ka dhisan cariga Catalonia Barcelona ayaa 3-2 gool daro ku qaadatay agrigeedna waxa waaye 4-3 sidaasna Barcelona ayaa loo ciribtiray tartanka UEFA Europa League naadiga Barcelona ayaa 3 gool loo hormaray ciyaarta markay mareysay daqiiqadii 4 gool laga dhaliyay iyo daqiiqadii 36 waxaa gool rigoora ah u saddexeeyay waxaa gool kale saddexaad u dhaliyay ciyaaryahan Kostic daqiiqadii 67 sidaasna 3-0 lagu hogaamiyay kadib Barcelona ayaa daqiiqadii 91 ciyaaryahan Sergio Busquets gool u dhaliyay halka Memphis Depay oo 90 daqiiqo lagu daray 10 daqiiqo gool rigoora u dhaliyay sidaasna 3-2 ku adkaatay Barca ayaana ka hartay tartanka UEFA Europa League sidaasna waxaa ku soo gabagabowday ciyaartaas sidoo kale waxaa la reebay xalay naadiga Lyon kadib markii 3-0 garoonkeeda ay ku qaabishay dhigeeda West Ham aggregate-kan wuxuu ahaa 4 gool iyo gool kulankii horena waxaa la soo galay 1-1 garoonka West Ham United sidoo kale waxaa haray Atlanta kadib markii garoonkeeda 2-0 loogu ciribtiray tartanka Europa League kadib RB Leipzig oo 2-0 ugu adkaatay ciyaartii horena waxay ku soo dhamaatay gool iyo gool sidoo kale ciyaartii ugu dambeysay waxay ahayd ciyaar u dhaxeysay Conference League oo ah Leicester City oo 2 gool iyo gool ugu adkaatay naadiga PSV Eindhoven kadib markii garoonkeeda ugu tagtay halka kulankii hore barbardhac eber la soo galay aggregate-kana 2-1 ayuu ahaa sidoo kale Conference League waxaa laga dheelay Olympique Marseille ayaa garoonka ugu tagtay BAK naadiga Laayo 1-0 ayaana ugu adkaatay kulankii horena 2-1 ayuu ahaa sidaasna Marseille ayaa ku soo baxday sidoo kale kulan ka dhacay qaraacada Italy naadiga Rome ay ku ciyaarto Rome ayaana 4-0 ku adkaatay kulan loo martiyay oo garoonkeeda loogu imaaday kadib markii kulankii hore 2 gool iyo gool dare ay qaadatay markii ay ahayd garoonkeeda ayaa loogu imaaday 4 gool ayayna ku adkaatay sidaasna tartanka UEFA Conference League ayay ugu soo gudubtay heerkiisa xigo sidoo kale Slavia Prague ayaa gool dare ka qaadatay dhigeeda Feyenoord kadib markii 3 gool iyo gool Feyenoord ay ku adkaatay aggregate-kan waxaa 6 gool iyo 4 gool maxaa ka leedahay ciyaarihii soo gabagaboobay UEFA Champions League iyo Europa League iyo Conference League waxaa idin soo tabinaa anigoo Cabdiraxmaan Xasan Cumar fadlan subscribe saar like saar share dheh si uu gaaro asxaab badan aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu